maartay wax uu kugu soo jawaabi doono marka notebook LM waxyaabaha aan ku sii jeclahay kamida aan ahaan aad baan u isticmaalaa hadeertan application baa loo sameeyo marka Play Store ku jira I don't know in iPhone ka loo sameeyo wali laakiin aan Play Store ka ku jira isticmaalay application kiisa waxyaabaha cajiibka ku yahay leeyahay kamida sawir baan siinaya hadda sawir waxaan siinayaa maybe video ku aragtay YouTube ka inta badan horta notebook LM af Soomaaliya ma ku fiicna laakiin English ka fahmayso aad buu u wanaagsan video YouTube ku aragtay video ka soo qaad productivity ka hadlay oo soconaya 15 daqiiqo so videogaas waxa ku jira maybe principles badan oo ku saabsan productivity ga waxyaabo caqabado qofku is ilaalin karayo marka ma doonaysid adigu videoga inaad daawato ama maybe ka caadsan tahay ama waxa doonaysaa videoga in lagaaga dhigo mid aad fahmi karto oo marka la soo yarjibiyay waxa sameey kartaa notebook LM baad tagaysaa videoga soo qaad doontaa oo u sheegi doontaa linkiga as a source oo u siinaysaa marka su'aalaha ka weydiin kartaa dhig kartaa adoo video aan daawanayo oo isticmaalaya principles ka video aan ku dhex jira routine sameeyo kala ama waxyaabo badan baa ka sii dhex weydiin kartaa laakiin kan ugu fiican ama technique ugu fiican aan ka isticmaalahay way in aan u bedelo podcast like videoga podcast aan u bedelayaa podcast laba nooc uu leeyahay mid extended ah waqti dheer soconaya mid yar oo normal ah oo 12 daqiiqo soconaya kadibna podcast-ka markaan gaariga saaranayo kala ama markaan lugeynayo kala ama markaan meel boorn iska fadhiyo kala ama marka time aan hayo inaan dhagaha gashto markaan dhageysto so podcast-ka hadii aan tijaabi any topic kali video ma ahan casharada xataa podcast waa ka sameyn kartaa si fiican baa lagu fahamsiinaa labada qof ay sooreysanaayaan wax iska dhigayaan qof expert ah iyo qof wax loo sharaxayo waa very fantastic features-ka uu leeyahay oo ilaa hadeertan aan aad ka ugu jeclahay kamid tahay notebook LM marka notebook LM hadii aan isticmaalno arday aad tahay hadeertan bilaabana isticmaasho si aad u isticmaasho kaliya waxa tagi doontaa notebooklm.google kadib markaa ka sagirto ama hadii kala Play Store ku qorto application kiisa oo heli kartaa halkaas oo ka isticmaali kartaa marka tijaabiya notebook LM hadii arday aad tahay waa qasab in notebook LM isticmaasho waxyaabaha notebook LM aan ku soo jeclahay waxa kamid ah ardayda kuma dhiirigeliya asaga qishka iyo waxyaabaha inuu u sameeyo assignment inuu uga jawaabo muhiimadiisu waxa weeye qofka marka inuu caawiyo in waxaan si fiican u barto ayaga labaad aan idin la wadaagi doono waa mid aad badankiin wada garanaysaan waa ChatGPT ama Gemini hadba kii aad xiiseynayso ani ahaan waxa aad u xiiseeyaa Gemini so Gemini waxyaabaha ku doorto waxa kamid ah waa ecosystem-ka Google hadday noqoto coding waxaas uu kaga fiican yahay uuna ka yara ballaaran yahay like hadii aad doonaysid inaad premium ka iibsato ama aad kireysato isku lacag weeye laakiin markaad iibsanayso Gemini waxyaabo badan ba kula socdo soolaan Google Drive baa helaysaa video ba sameyn kartaa wax notebook LM ka daydin sharaxay kankii ka horeeyta mid waxa heli doonta plus oo ka awood badan kan kale marka waxa weeye waa all in one ecosystem aan buu kaga fiican xataa Google Documents hada isticmaasho Excel kiisa ama Sheets kiisa ay qayb buu ka noqonaya waa all in one marka kaas baxaysaa laakiin muhiimadda aan ugu jeedo waxa weeye AI-gan labaad aad u baahantiin inaad si fiican u isticmaashaan waxa weeye ChatGPT ama Gemini kuwaas waxa la isku yiraahdaa generative AI so generative AI-gan wuxuu ka caawiyaa in wixii su'aalaha weydiiso kaaga jawaabo waxa sameyn kartaa mobile-kaaga meel yar oo short ka dhigo wixii aragtid iska weydii waxyaabaha la yaabto sawir u dir hadii imtixaan ku jirto isku day xataa in macalinka codkiisa inta arko garasta oo dib markaa su'aalaha u weydiiso waa very fantastic hadii aad ka dhigato markaa assistant aad mar walba diyaar ku ah oo su'aalaha mar walba weydiiso wax badan ba ka faa'iideysan doonta marka hadii arday aad tahay oo aan isticmaalin generative AI wax badan ba ka maqan oo u baahan iska saxdo inkastoo badankiin imika aad fahamteen generative AI ga isticmaalkiisa uu fududaaday qof kasta uu isticmaali karo loginkiisa wixii dhan la fududeeyay haddana dadka qaar kood baa laga yaabaa inay isticmaalaan so waxaad tagtaa Play Store ka ama App Store ka waxa ku qortaa ChatGPT ama Gemini hadda ku shubo oo bilow marka in aad isticmaasho AI gan generative AI ga si marka waxbarashada ugu horumariso AI ga ugu dambeeyaan doonayna idin la wadaago waxa la yiraahdaa Quillbot so Quillbot waa artificial intelligence loogu talagalay waxa la yiraahdo paraphrasing so paraphrasing wax kala ma ahan waxa weeye AI ga marka su'aal uu ku siiyo ka marka keentid uu ku nadiifinaya dib uu marka uu kugu qori doona si marka uu uga dhigo humanizing wax la dhaho marka uu hagaajiyo so laba mid oo isticmaal kartaa inaad ku ogaato hadii text qof uu soo qoray hadii aad keento xagan waxa ku sameyn kartaa checking inaad hubiso in qoraalkan AI lagu soo qoray hadii marka aad doonaysid in waxa soo qortay in aan la ogaanin waxa dhexmarsiin kartaa Quillbot si marka paraphrasing ugu sameyso kama wado ma dhiirigelin aniga in qishka la saga ilaaliyo oo soo nadiif laakiin still paraphrasing wuxuu ka caawin karaa in jawaabaha AI uu ku siiyo marka uu ku saxo uu ku nadiifiyo xitaa waxa uu isticmaali kartaa research sameynaysi waxyaabo kale ku isticmaalayso in waxa soo qaadatay ee noqdaan wax nadiif ah hadii shaqo xariisanaysa xitaa waa dhexmarsiin kartaa
si markaa wixii uga dhigto wax nadiif ah soo ay ayaga isaga mararka qaar xalaga si yar oo qaldayn wax u qoro